askari gariir oo qaas ilaahay inuu ku rido laakiin maanta dunya qaaymin oo daroogaysan waay saasay sember noo dhibaateeyaan ay ilmaha soo dhawaada sida muuqaalka dhig isku aragteen hooyooyinka masaakiinta oonaya waa familka wiil yar oo si xun loo dilay degmada Garsbaale ayaa lagu dilay walfiiri waa degmada cusbaad oo Garsbaale ayaa lagu dilay waxaana dilay askari dowladda kumeelgaarka Soomaaliya dilay wili Soomaaliya iyo Muqdisho dilka dadka shacabka way iska socdaan bilaa macna daro balfiiri waxa ilmeynaysa maanta cunugeeda ayaa laga dilay oo hadda ardayda hadda dugsiga sare ka baxda oo imtixaanka dowladda ka qalin jabisay waa waliba hormar in mustaqbal ay lahayd niyada ay ku dhisanaysaa laakiin maanta adduunka ayuu ka wada wala dhageysan hooyadaan wiilkiisa si loo dilay gardada leh iyo qaladka laga galay iyo wiilkeedii iftiinka ayuu ahaa tiirka ayuu ahaa maanta mugdi ayuu u shiday wala dhageysan askari gacan ka qadarnaa wiilkaygu dishe waraani dowladda waxa ka codsanaa wiilkaynu cadaalad yeelay jareer cadaalad hel mal arki maafi laakiin cadaalad oo loo helina rajeeyo haya hal cid oo meel degan caa'ila dhan dad dhan u soo duulayaan oo dad weewen oo ku dhex jirin ya hoygan aan ku suganahay waxa uu ka tirsan yahay tabeelaha Sheekh Ibraahim waxaana taala tacsida Allah u naxariistay Cabdiqadar oo ahaa wiil dhalinyaro isla markaana uu dilay askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya sida la sheegay dilka Cabdiqadar ayaa la sheegay inuu daba socday kadib markii laba qoys ay dagaalameen isla markaana uu dhacdadaas u geeriyooday dhacdada uu ku geeriyooday Cabdiqadar ayaana ka dhacday degmada Garsbaale kadib dilkiisa waxa la soo gaarsiiyay halkan oo ay ku nooshahay hooyadiisa isla markaana haatan uu meedkiisa Allah u naxariistay Cabdiqadar waxa uu ahaa wiil dhalinyaro isla markaana sanadkan ka gudbaya fasalka 12aad ee dugsiga sare isla markaana hami sare ka lahaa waxbarashada hooyada dhashay Cabdiqadar oo dareen ahaan aanan hadli karin ayaa la hadashay warbaahinta waxay ka warantay dhacdada ku dhacday isla markaana uu ku geeriyooday wiilkeeda askari gacan ka qadarnaa wiilkaygu dishe waraani dowladda waxa ka codsanaa wiilkaynu cadaalad yeelay cadaalad ilaahay cadaalad igu duceeya wiilkayga 19 sano jir oo yahay arday wuxuu ii barnaa sanadkan oo imtixaanka dowladii galay sidoo kale waxa warbaahinta la hadlay xubno ka mid ah qoyska marxuumka geeriyooday Cabdiqadar waxayna ka dalbadeen dowladda federaalka ee Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay cadaalad ugu helaan wiilkooda عدال عند الله تعالى انت دولن ودا الله سبحانه وتعالى waxa aaga barinay dhul gariir oo qaas ilaahay inuu ku rido laakiin maanta dunya birina aakhira la jooga ma fahmino ninkii dulun wada Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala meel daran Allah ka bixiyo Allah yaqrab beetakum insha Allah biidnillah alkarim wallahi ma joogin anaka madiina joogni gadaal la ka iimaanay ilma yar la ka bilaabatay tayib hal cid oo meel degan caa'ila dhan dad dhan u soo duulayaan oo dad weewen oo ku dhex jirin ya dadka insaanimada aabi tayib insaanimo markii idinka dadkan dad weewen ee joogan aan isku duuduuli kara laakiin ilma yar ma saddex abda bil loo soo wadana ninka nin la wacdo ahay garab oo ahay oo dadkaas u hiilinayo ahay ninka ciidan iska socdo ma ahayn ciidana wactay haddana xal waxay yireen anaga ma wacan taleefanadeen alla fiiriyo askariga dareeska dawladda uu labisan yahay بوليس ملتار ما لها واي بوليسنا ما قائمين أو وضد دروغيسان واي ساسay sember noo dhibaateeyaan ay ilmaheena wadooyinka marlaayeen oo gurigeyna ku badbaadin la'anahay booliiska wayna dhibaateeyaan sember wayna dhibaateeyaan in nagala qabto xaqeynana aan helna u baahanahay hadii cadaalad jirto maanta alxamdulillah jazaakumullahu khayr lama kala maanta waa dhiman lahay meeshii la hurino maray gacan ka xaq daran ayaa dishay laakiin aniga waxaan rabaa lama kala maanta waa dhiman lahay Cabdiqadar xaafada lagu dilay oo saldhig le gudoomiye le gudil le oo maanta taliye le taliye meesha joogi taliye inta xukumayeen inuu taliyaas asan oo raadsanin wax baan ka qabnaa dawladda haday caadil ah Axmed Dawle iyo ani ilma adeeranahay Axmed Dawle iyo ani ilma adeeranahay ayaa weel dadkii way xiriyaan la leeyahay inay xiran yihiin inay baxsan yihiin warka ma hayno hadda waxaan rabnaa dawladda waxaan ka codsanaynaa haday maanta anaka cunugan ilaahay wuxuu yiri wakatabna calayhim aad bay qalbiga xanuujisay hooyada masaakiinta maanta qalbiga ilmeynaysa
bilaash mu'min wiilkeedii u ahaa iftiinka u ahaa ayuu adduunka mugda u dhigay imtixaankii dowladdii hadda imtixaanka dowladda ayuu ka qalin jebiyey oo dugsi sara fiir mustaqbal heer ayuu lahaa ayada raja ayay ka qabteen askarida Soomaaliyeed ayaa si qaldan u dilay weliba si xun ayuu xabad ugu dhiftay dadkii shacabka halka joogay waa wareegaysateen wal muuqaalka meel gaarsiiyay laaban kala gaarsiiyay wiilka miskiinka loo duceeyay maamadaana qalbigeeda Ilaahay soo qaboojiyo shaqare muuqaalka adiga aad maasan aad ba waxba hooyadan maanta wax ku dhacay adduunka qofal buu ku tagay laakiin geeri xanuun badan ay ku noqotay shaqare muuqaalka adiga aad maasan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته